wefti ka socda Jaamacadda Carabta ayaa maanta dalka si weyn lagu soo dhaweeyay iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland uu kamid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ee garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ay ku soo dhaweeyeen weftigaasi isla markaasina weftigaasi waxa ay kulan albaabadu u xiran yihiin kula yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda uu kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo mas'uuliyiin kale xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland weftigaasi ayaa markii ay soo gaadheen garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport magaalada Hargeysa waxa ku soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kuwaasi oo soo galbiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland oo kulan albaabadu u xiran yihiin ay kula yeesheen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland علي شراء kadib kulankaasi waxa ay wafdigaasi kulan ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya la qaateen wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland kaasi oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha gabagabadii kulankaasi waxa hadallo kala duwan u jeediyay warbaahinta nuxurka kulankaasi ka soo baxay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland Saad Ali Shire sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Ali Salaan Jirde iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland waxa maanta halkan inala jooga ونو يمي وفتي أفرقفة وكسعودة جامعة عربتا وهو جامعنا يرجع جاركا حقيقة جامعة وحينو يمي دين السعودال حق أورورنا يحق أجاله وحنا جوان لكل مي هل كنا ما نقدر وحق لكل مي وزارة فربضن كده جيبه وحنوصو بندقني ونوشجني بهيه ودن كي حاجة كايستا حاجة بيها حاجة عنتدا عافيمات كا وحبرشدا عبارها ويقاتين إن شاء الله بإذن الله الكريم حرجين سعودة كنا نقضي كيوه الرئي وحرجين ونقضي من الله مدفر بدن أي نسوقين أي وفودين وقت ما دو يو متقنا جرجابين وقت ما دن شامد عربته ما أنت مدبلو ينو هاي aad baan u soo dhaweynaa ku faraxsan laakiin inoo yimaadeen insha Allah bin ilaahay kariim kan wuxuu noqon doonaa bilow wanaagsan anigu wuxuu arintaydu ay focus gareynaysaa ama ay diiradda ku haysay waxa xagga horumarinta wixii siyaasadda saacadiye teamkiisa wasaaradda khaarijiga ayaan u dhaafnay markaa concept notes badan waa noo dhiibnay national development plan keenina shantii sanadood ee dhamaadka ku jiran waa noo dhiibnay oo sanadkan oo kaliya inuu inooga baahan yahay 190 milyan oo dollar in lagu maalgeliyo kaas oo aanu nidhi inuu u bandhigo jaamacadda carabta si ay wax uga geysanayso canaanna uma naayareysano oo daawadinkii maqlayay idinku goobjooga ka hadeen canaantii ay lahaayeen siinay wax kale naga ma canaantu waxay inay dhexdhexaad ka noqdaan qadiyadda Somaliland iyo Soomaaliya oo ay yihiin dad muslimiin oo carabna aan wadanay iyadoo ay noognahay intii horena inaan wadamada carabeed wax tar badan inaga inoo lahayn marka bal waxaan rajaynaynaa in intii dambe ay safiirkan inkan ambassadorka inoo yimid warka uu qaaday ay bal wax ku qabsadaan